halkan waxa weeye reportkii CIA soo saareen oo markaa iyagoo declassified information ka dhigay xogtii SNM ay heshiiska kula jirtay xabashida tan iyo 1981kii maraykanku sidoo kale wuxuu ka warramaya in SNM jabhadda ay soo taageeri jirtay dhaqaalena soo jiidi jirtay gabaadna ay ka dhigan jireen dhulka xabashida iyadoo ay ogolaatay dawladda Itoobiya ujeedada Itoobiyana kaliya aysan ahayn inay majxaabiyaan jiritaanka dawladda Soomaaliyeed sidoo kale ay doonayaan inay mar walba cirib tiraan isirka Soomaaliyeed marka iyagoo cadawtinimadeeda guunka Itoobiya ka duulaysa ayay markaa SNM hoysiisay dhaqaalana siiyeen meel ay ku gabadaan iyo sidoo kale tababar ciidan iyo saanad military iyo sidoo kale dhaqaalana ay siiyeen iyagoo doonaya inay majxaabiyaan dawladdii ummadda qaranka Soomaaliyeed sidoo kale SNM waxay ahayd mashruuc dabcan dad shisheeya oo xabashiya ay wateen iyagoo arrinkana aad uga faa'iideystay marka xogtan oo dhan waxay ku jirtaa website-ka CIA oo markaa reportkan oo ay soo daayeen CIA Mareykanku 2012 bishii 7 qof walbana uu ka akhri karo magaranaysa xogtan iyo xogo fara badan oo ku jiraba sidoo kale waxa xogahan ku jira iyagana xogo kale oo dheeraad ah marka halkan waxay ku tusinaysaa magaranaysa sida dawladda Itoobiya marka ay u taageeri jirtay jabhaddii ayna gacan adagna ugu haysay marka mashruuca Addis Ababa tightly controls the movement of dissidents marka Addis Ababa maamulkoodu waxa ay si gacan dheeraada amba ay gacan dheer ay ku controlayaan dhaqdhaqaaqa jabhadda iyagoo marka sidoo kale controlaya meesha ay doonayaan inay weeraraan iyo sidoo kale xilliga iyo amba inta ay weerarkoodu soconayo oo dabcan calaashan meelahay weerarayaan waa meelihii uu joogay ciidankii qaranka ummadda Soomaaliyeed iyagoo markaas weeraro argagixina ku fulinaya ciidamada Soomaaliya marka waxay jabhad argagixisa oo ka dhana dawladnimada ummadda Soomaaliyeed iyagoo magaranayay miinooyin iyo magaranayay waxyaabaha kale xabashidu soo dhiibaanba ay u adeegsan jireen si marka ay ciidamada Soomaaliya xuduudda u khaqalgeliyaan halkaana marka ay xabashidu ay gelitaan uga hesho sidoo kale waxa reportkan Mareykanka sirdoonka uu sheegayaa in jabhadda rabitaankeedu uu yahay amba waxay u halgamayaan uu yahay waa sidoo sheegeen inay helaan jabhaddu dawlad isaaqa oo madax bannaan oo ka yagleelanta waqooyiga Soomaaliya iyagoo doonaya inay helaan dhaqaale madax bannaan iyo doorashooyin madax bannaan iyo sidoo kale arrimaha hoose ee dawladnimo oo ka madax bannaan Soomaaliya gabi ahaanteeda kaleba sidoo kale wuxuu sheegayaa in headquarterska amba xafiiska SNM uu ahaa Addis Ababa iyagoo markaa xukuumadda xabashiduna ay SNM siiyaan tababar hub rasaas iyo sidoo kale dhaqaale ay ku taageeraan si markaa ay u majxaabiyaan dawladdii ummadda Soomaaliyeed ee markaa jirtay xabashiduna waa intay rabeen iyagoo hadafka xabashidu taageeridda SNM ay uga socoto in sidoo kale ay ridaan dawladda Soomaaliya laakiinse ay cirib tiraan waxa la dhaho isirka Soomaaliyeedba mustaqbalka iyo aragtida xabashiduna uu ka yahay SNMna way kula socotay amba mar walba ay ku qanacsan tahay in xabashidu ay cirib tirto isirka Soomaaliyeed laakiinse iyaga laftirkooda xataa haddii ay xabashidu isirka Soomaaliya cirib tiraan iyaga laftirkooda way ku xigaan laakiinse ma ogaay taana way ka wada socdeen sidoo kale waxa isna jira report labaad oo markaa sirdoonka Mareykanku ay soo daayeen isagoo markaa unclassified laga dhigay oo markaa dadku publica ay akhri karaan page-kiisa afraad wuxuu isna ku sheegayaa in SNM ay weerareen markay soo galeen waqooyiga Soomaaliya ay weerareen magaalooyinka dhamaadkii May kadibna ay execute gareeyeen amba ay dileen dadkii dawladda Soomaaliyeed ka tirsanaa iyo sidoo kale dadkii ay uga shakisnaayeen inay SNM ka soo horjeedeen iyo sidoo kale dadkii ay uga shakisnaayeen inay dawladda waraacsanaayeen waxayna ay dileen dadka ay laayeen ay u leynayeen qayb ka midana inay ayna isaaqba ahayn oo marka wax la wixii aan isaaq ahayn ay marka ay dhagtada dhiig u dirayeen sidoo kale waxay sheegeen reportkan sirdoonka Mareykanka wuxuu sheegay in xabal wadareed ay ku taalo burca kuwaasoo xabal wadareed qabuuraha xabal wadareedka amba toga weyn ee xabal wadareedka ay ku jiraan 70 iyo 70 qof oo markaa ahaa dadkii ay laysay jabhadda SNM
report saddexaad aanan helin laakiinse xuseen jaamac youtube-kiisa aan kasoo helay isna wuxuu sheegayaa in inkastoo ay xabashidu ay si joogtaa ciidamada SNM u siinayeen hooy ay u siinayeen hub ay u siinayeen dhaqaale iyo gaadiidba kuwaasay ku taageerayeen SNM haddana SNMtu waxa ay noqotay mid aan si howlkarnima amba wax la taaban karo aan kasoo hayn dagaalkii ka dhanka ahaa ciidamada dowladda Soomaaliyeed isagoo tusaale markaa usoo qaadanaya mar ay ahayd 1987 oo February 1987 jabhadda SNM ayaa waxay soo kaxaysatay Ethiopia iyadoo ciidamada Ethiopia iyo SNM isu soo habar wacdeen oo markaa ay isu soo raaceen inay dagaal la galaan qayb ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya oo markaa ay soo weerareen aaga Buuhoodle ilaa iyo isheegay Beledid taasoo markaa ay kala kulmeen jab iyo halaag taangiyo fara badanna laga qabsaday dad fara badanna laga laayay sidoo kale xabashidii iyagana aad baa loo laayay waxaan filayaa ilaa 25 maxbuus oo xabashiyana in barta dowladda Soomaaliya ay ku qabatay halkaana amba isheegay Jida Beledigna ay kala kulmeen amxaaradii iyo SNM labaduba ay ka soo gaadheen guuldarro aad u badan waa sida reportka uu sheegayo Mareykanka sidoo kale guuldarrada ku dhacday ciidamadii Ethiopia ee xabashida iyo SNM ciidamadii SNM ee beesha Isaaq guuldarrada 1987 ku dhacday waxaa lagu soo baahiyay wargeyska Los Angeles Times ee ariga Mareykanka laga leeyahay isagoo markaa wargeyskaas isna sheegay Somali troops ayaa waxay dileen ciidamada Soomaaliya ee qaranka Soomaaliya waxay dileen 300 oo xabashi ah dabcan ciidamada xabashida iyo SNM way isku jireen waxay kaloo ka gubeen 11 taangi oo markaa xabashidu ay lahayd oo markaa joogay oo soo weeraray calaashaan waqooyiga Soomaaliya sidoo kale waxaa isna jiray isheegay weerarkaas in uu ka dhacay gobolka ay dhaheen gobolka Togdheer loo yaqaan Togdheer region oo dabcan magaalada Beledid ilaa Buuhoodle areas waa gobolka Togdheer bay markaa ahayd waxay kaloo wargeyskaas uu sheegay in 25 maxbuus oo askari ah oo markaa dhaawacan ay qaateen oo markaa iyagoo maxaabiista ay qaateen sidoo kale Soomaalida dhinacooda iyaga 30 kaliya lagaga dilay Ethiopia ayaa waxay iyaguna beeniyeen in ciidamadoodu ay gudaha u galeen xuduudda Soomaaliya laakiinse in SNM iyo xabashidiis wadatay si xun loo jabiyay taasi waxa weeye waa mid hubaal oo xaqiijiyeen sidoo kale si ayaduna warkan wargeysku soo saaray iyaguna way xaqiijiyeen oo markaa guuldaradii yani ay la kulmeen sheegay SNM iyo xabashidu iyaguna taa waa xaqiijiyeen marka halka waxa ku tusanaysaa dabcan mar walba xabashida iyo dadkii isku dhiibi jiray amba maamulka SNM haadan ama cid kale haatee in mar walba halka u socdeen oo ahayd in Soomaaliya magaranaysa la kala jaro amba ummadda Soomaaliyeed la mjaxaabiyo ma ahayn wuxuu cadaalad ka carar iyo magaranaysa sida ay markaa ku doodayeen xaqaduna ay tahay inay magaranaysa dawlad ay leeyihiin maamul qabiilkaas ay qabsadaan sidoo kale reportka Mareykanka uu sheegayo isagoo markaa waxa ay rabaan jabhadaas amba ay doonayaan waa inay helaan magaranaysa qabiil dawlad leh oo magaranaysa beesha Isaaqa oo markaa dhaqaalahooda iyo doorashadooda iyo maamul hoosaadkooda Soomaaliya ka madax banaan inay helaan tiina maanta waad aragtay doorashadu waa ta uu si ay xilliga qoraysay weeyaan oo markaa doorashada Soomaaliland ka dhacda ma aha yani mid dawlad waa mid beel ay leedahay gaari taana deenihiina marxaatiidin ku ah xisbiyada ka soo baxay oo dhan waa hal beel cidda qabsatana waa hal beel waa tii sidii uu Mareykanku sii sheegay sidoo kale Mareykanku report aad weyn waxay ku sheegeen in jabhadahan isku dayay inay mjaxaabiyaan dawladda Ethiopia inayna ahayn jabhada bedeli kara siyaad bare maamulkiisa sababtoo ah yiri ma garanayaan hanaan dawladnimo sidiina way noqotay marka maaha wax shaqeynaya bay dhaheen nidaamkan jabhaduhu haddii ay xataa dawladda ay meesha ka saaraan sidoo kale iyaga laftirkooda meesha kuma wada heshiin doonaan buu reportku sheegaya sidiina way noqotay oo iyaga laftirkooda meesha kuma wada heshiin jabhadihii way iscuneen oo midba midka kale ayuu la dagaalamay sidoo kale dadkiina way laayeen oo wadankii waxay u horseedeen qalalaase iyo hoog iyo halaag marka taana runtii reportku wuu sii odorosay dabcan way ku saxnaayeen laakiinse waxyaabaha la yaab kale ay markaa ka qoreen weeyaan oo maanta rumoobay